السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waan idin salaamayaa dhammaantiin. waxaan rabaa in aad ku soo dhawaatiin channelka insha Allah. Ha iga iloobina subscribe-ka, ha iga iloobina share-ka insha Allah. waxaan u faa'iideynaynaa walaalaheena Soomaaliyeed insha Allah waxyaalo badan aynu ogeyn oo dhibaato u keenaya insha Allah faa'iidana leh ayaan rabaa inaan idiin soo sharxo insha Allah. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo al-zanjabil. zanjabilka inaan ka hadlo amba ginger inaan ka hadlo ayaan rabaa. faa'iidada uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay insha Allah. faa'iidada uu leeyahay ayaan rabaa inaan horta ka hadlo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku amaanay amba quraanka kariimka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku sheegay zanjabilka. قال تعالى ويسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إلهي سبحانه وتعالى وحد أبدونتين كوبنا لغسين دونا وحويان جنة زنجبيلك ودو الدنيا يا آخر ودو وفائدة فائدة أيولي الدنيا دا هدانو كعبنو zanjabilku faa'iido badan ayuu leeyahay. zanjabilku sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ka yiri rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam can abi saciid al-khadri radiyallahu anhu ilaahay ka raali ahaadaa asxaabigaas qaala wuxuu sheegayaa xadiiskaasi inuu u soo hadiyeeyey malika ruum boqorkii ruum rasuulka inuu soo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam jirid sanjabiila amba geed oo sanjabiila inuu u soo hadiyeeyey. uu yidhi cuna, dadku ha cunaan, qof kaste ha cuno ayuu yidhi. qidcatu waad camni qidca, wuxuu yidhi in yar ha la cuno. wataa inta yar la sheegayo qidca waa wax yar, qidca waa wax yar. cuna sanjabiilka markaad isticmaalisiin, hana isku badinina sanjabiilka. waxaanu cunnay qidcadii ayaan cunnay, intii yareyd ayaanu cunnay ayaa asxaabtiina yidhaahdeen. marka waxa weeyaan sanjabiilka looma baahna inaad isku badisid oo wax badan aad cuntid. marka insha Allah qidcadda uu yidhi cuna in la cuno weeyaan. marka maxay tahay? waa in aad ka faa'iidaysataa ood cuntaa in yar inaad cuntid, maadaama uu u soo hadiyeeyey boqorkii ruum malika ruum uu rasuulka u soo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam jirad sanjabiila. fa adcim kulli insaan qidcatu wa adcamni qidca. marka waxa weeyaan xadiiskaasi oo abi saciid al-khadri radiyallahu anhu ilaahay ka raali ahaadaa asxaabigaasi wuxuu yidhi wuxuu u soo hadiyeeyey malika ruum rasuulka calayhi salaatu wasalaam geed amba qayb sanjabiila. wuxuu yidhi ha cunaan dadku, qof kasta ha cuno in yar oo sanjabiila. waa qidcad intii aan idiin tusay weeyaan. waxa weeyaan qofku marka uu sanjabiilka cunayo waa inuu wax yar cunaa. halkan waxaa inoo yaala miisaan baa inoo yaala. waxaan rabaa in aan waa kolley waan miisaamay, waa 5 gram, kan waa 5 gram, kanna waa 4 gram. wakaa miisaankii dhammaan waa kaasi waa 4 gram insha Allah. ka kalena 5 gram weeyaan. marka insha Allah asxaabay waa kaasi midna 4 gram buu ahaa, midna 5 gram. 5 4 2 3 inaad hoos uga dhaadhacdo moojaane haddii aad in ka badan samaysatid dhibaato kuu keenaya. nabigeenuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qidca in yar cun oo yar cun sanjabiilka, haddii kale dhibaato aanad adigu dareemayn ayaa kugu dhacaya. marka ragga ka hadlay ee kalena waxay ku soo sheegeen qidca ayuu nabi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam, laakiin rag ayaa ka sheekeynaya kutubta qoraya waxay ku tilmaameen 4 gram
amba 5 garaam wax ka badan lama cuni karo. wax ka badan haddaad cuntid dhibaato kuu keenaya. dhibaatadaasi maxay tahay? in uu jirkaaga dhiig ku furo. sanjabiil badan haddaad cabtid jirkaaga oo joofka gudaha inuu dhiig badan ku furo oonad arkayn. dadna wuxuu ka keenaa sanka ayaa dhiig ka yimaada markay sanjabiilka cabbaan, amba mararka kaleba jirkooga markuu galo uu dhibaato ku sameeyo. waxa weeyaan sanka ayuu dhiigu ka yimaadaa iyo gudaha manu arkayno, ilaahay baa arkaya un. gudaha ayuu dhiig ku sameeyaa baa layidhi sanjabiil badan haddaad cabtid amba haddaad cuntid. marka sankana dhiig buu ka keenaa. calaamaadka sanjabiilka weeyaan. sanjabiilku dhibaatada uu leeyahay amba sankaad dhiig ka arkaysaa amba jirka gudaha ayuu dhiig ku sameeyaa. marka laakiin dhibaatadaas intaasuu leeyahy. marka maxaan halkaa ka soo qaadanaynaa? ha isku badinin. sanjabiil haddaad samaysanaysid 5 garaam ha ka yaraado, markaad cabaysid ha ka yaraado, inuu ka badanin. insha allah dhibaato markaa makuu keenayo. laakiin hadduu ka bato oo wax badan samaysatid aad buu kulul yahay, maca waxa weeyaan madhiqiraha dhibaato u keeni karaa. waxa weeyaan jihaas hadmiga waxa weeyaan halkan cunaha uu maraayo dhibaato u keeni karaa. marka insha allah ha la iska ilaaliyo oo waxa weeyaan sanjabiilka badan ha la iska ilaaliyo. laakiin ilaahay iyo rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam way ammaaneen sanjabiilka. sanjabiilku faa'iido badan buu leeyahy. marka insha allah waanu aragnay dhibaatadiisa. insha allah waxaanu ka hadlaynaa isaga oo dhibaatadiisu maalin gaarana insha allah. marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidadiisa inta kale insha allah. halkan baan iska dhigaynaa. waxaan rabaa inaan soo ceshado sidii aan u samayn lahaa sanjabiilka maanta insha allah. sanjabiilku muxuu faa'iido leeyahay? sanjabiilku wuxuu faa'iido leeyahay. halkan waatan waxay taala in yar weyn baa taala. waxa weeyaan haddaan kan eegno waa 9 garaam. wuu badan yahay, looma baahno inaad cuntid 9 garaam inaad cuntid looma baahno. waa 4 garaam amba 5 garaam amba 3 garaam amba 2 garaam. waxaa 5 ka hooseeya iyo kuu fiican sanjabiilka inaad cabtid amba inaad cuntid. laakiin wixii ka badan waxa weeyaan dhibaato kuu keenaya. waadiga arkaya labadani isma leeko. waad aragtaa kaana waan miisaamay waa 9 garaam ilaa 10 garaam weeyaan. kana waan miisaamay 5 garaam weeyaan. marka insha allah waxa weeyaan inta u dhaxaysa daawo subxaan allah waa miisaanku kala weyn yahay. marka maxaa lagu yidhi adiga ka 4 garaam iyo 5 garaam iyo wixii ka hooseeya waad cabbi kartaa ama waad cuni kartaa sanjabiilka. laakiin wixii ka badan ogow dhibaato kuu keenaya. diinteenna way sheegtay oo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qidca in yar cun buu ku yidhi. waxa weeyaan marka faa'iidadiisa ayaan rabaa inaan ka hadlo insha allah. muxuu faa'iido leeyahay sanjabiilku? sanjabiilku wuxuu faa'iido leeyahay naqaska calooshaada ku jira ayuu waxa weeyaan kaa soo saarayaa. gudaha ku jira ayuu waxa weeyaan kaa saarayaa. haddaad dibirsan tahay hadduu naqas ku jiro waa soo saaraa sanjabiilku. aad buu faa'iido u leeyahay. haddii balqam aad leedahay oo waxa laabta lagu fadhiyo sanjabiilku faa'iido ayuu u leeyahay qofka. haddii lagu daro weliba caado malab lagu daro saafiya. marka lagu daro malab saafiya waxa weeyaan balqamka iyo waxa hargabka iyo duriga laabta kuu fadhiyo oo dhan uu kaa baabinaya, uu kaa nadiifinaya. markaad ku yara darsatid malab waxa weeyaan 2 malqaacadood ayoo koob sanjabiila ayaad ku darsanaysaa. koob sanjabiila ayaad ku darsanaysaa 2 malqaacadood oo malaba. qof walba siduu u jecel yahay. malab saafiya insha allah waan samayn doonaa maanta. taasaan samayn doonaa. marka waxa weeyaan markaste sanjabiilku wuxuu sheegayaa in malab saafiya lagu cabo oo koobka aad ka dhigatid casiirka amba sharaabka ka dhigatid amba cabitaan ka dhigatid inaad malqaacad amba 2 malqaacadood oo malab saafiya aad ku darsatid. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay uu safeynayaa sanbabada uu safeeyaa. meelaha qasabaduhu maraan sanbabada uu safeynayaa, uu kilin gareynayaa, uu nadiifinayaa. insha allah ha laga faa'iidaysto. waxaa kaloo uu faa'iido u leeyahay codka qofka uu nadiifiyaa, soodkiisa uu hagaajiyaa sanjabiilku. marka insha allah ha lala socdo. waxaa kaloo caafimaad u yahay
hagaajiyaa afka alfam raa'ixat alfam waxa weeyaan wuxuu qurxiyaa amba wanaajiyaa riixda afka kasoo baxaysa amba wuxuu hagaajinayaa afka urta kasoo baxaysa uu hagaajiyaa sanjabiilku raa'ixat alfam marka waxa weeyaan udgoon ayuu ka dhigayaa afka sanjabiilka haddaad cuntid iyo haddaad cabtidba insha allah wanaag ma ahe wax calashaan dhibaato ah ma laha sanjabiilku ilaa haddii aad isku badisid moojaane sanjabiilka haddii aad ridqatid oo ku darsatid casal wuxuu siyaadiyaa awoodda ragga ayuu siyaadiyaa haddii aad sanjabiilka malabka saafiga aad ku laaqatid wuxuu hagaajiyaa awoodda ragga ayuu hagaajiyaa insha allah waxaa kaloo u fiican yahay uu awood siiyaa halkan caloosha ayuu awood siinayaa haddii ay caloosha waxaa dabacasto alashaan ay dhibaato mar kastaba ay ku xanuunayso uu awood buu siinayaa awood ayuu siinayaa caloosha oo waxa weeyaan awood buu siinayaa midhiqiro oo dhan maadaama uu kilingaraynayo uu hagaajinayo awood ayuu calooshaada siinayaa uuna hagaajinayaa waxaa kaloo uu hagaajiyaa caafimaad u yahay beerka alkebt oo waxa weeyaan waqtiyada qaboobaha haddii maad aragtay beerku dhibaata kaa haysato isagana uu nadiifinayaa uuna hagaajinayaa beerka insha allah laga faa'iidaysto waxaa kaloo faa'iido u leeyahay dadka indhaha si fiican waxba uga arkin waxa weeyaan aragtidoodu aadka u naaqustahay maxaa la yidhahdaa madmadow ma arkayo oo si fiican waxaas uma arko madooba iga saaran oo kale wuu hagaajiyaa wuxuu samayn karaa qofkaasi uu isticmaali karaa isagoo indhaha yar marsanaya amba uu cabbayaa amba uu cunayaa amba intuu sharaab ka dhigtuu cabbayaa amba uu cunayo qaniini wuu fiican yahay indhaha ayuu fiican yahay amba intuu qabto ayuu indhaha saayaru marinaya sida indha kuxushoo kale u marsanaya insha allah waxaa kaloo u fiican yahay bakteriyada kugu jirta jirka ku jirta iyo xinjiraha ku jiro oo dhan iyadana waxaa lagu laaqanayaa uun oo lagu walaaqayaa amba lagu laaqayaa khalto lagu sameynayaa casalkii uun malabkii saafigii ayaa lagu laaqanaya waa lagu cabayaa markaa waa dawa kaasina bakteriyadoo dhan buu ka dawa yahay iyo xinjiraha jirka ku jira ayuu ka kilin garaynayaa waqtiyada qaboobaha waa dhibaato badan yahay waqtiyada qaboobuhu marka insha allah waxaa kale uu ka shaqaysiiyaa uu faa'iido u leeyahay inuu qofka dhiigga dowra damawiya dhiigga waxaa shaqaynaya qofka jirkiisa ka dhex shaqaynaya inuu xarakaad u sameeyo uu ziyaadiyo haddii maad aragtay dhiiggu moogta aanad aada u shaqaynayn iyo dareenkiisa ayuu hagaajinayaa dowr damawiyaasi dhiigga ayuu ka shaqaysiinayaa iyo shucuurtiisa ayaa calashaan uu hagaajinayaa marka insha allah kaa kalena waxaanu lagu darayaa wuxuu ka shaqaysiinayaa baari uu xarakaad u keenayaa uu ka shaqaysiinayaa dhiigga jirka dhex mara ee socda ayuu jirka dareenkiisa waxaasoo dhan ayuu kalingaraynaya u nadiifinaya marka insha allah aanu ka faa'iidaysano oo waxa weyn maadaamuu bakteeriyada dilayo maadaamuu caloosha hagaajinayo maadaamuu beerka hagaajinayo maadaamuu sababada hagaajinayo ma ka faa'iidaysanaa marka waa wax aad u fiican ilaahayna waa ammaanay jannada lagu cabi doonaa koobab baa lagu cabi doonaa ilaahay subxaana wa tacaala siin doonaa dadka marka insha allah hanu ka faa'iidaysano maadaama uu aad u dawo yahay marka maanta maxaan sameynaynaa waxaan rabaa in aan sameeyo insha allah 5 gram ayaan qaadayaa waan ridqayaa 2 koob ayaan nooga soo dhigaya casiira waxaan inoogu dari doonaa insha allah malabkan waxa weeyaan kaleer honey marka waa saafi waa malab saafiya insha allah tukaamadeenoo dhan baa haya marka aad u fiican tukaamadoo laga helayaa marka insha allah ha laga faa'iidaysto sidee baan u sameynaynaa bal ila socda insha allah casiir ahaan baan rabaa inaan ka dhigo oon malabkaana ku daro oon cabo insha allah
annagiyo reerku ay cabaan insha allah maadaama uu rasuulkuna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dawo ilaahayna qur-aankiisa kaga sheekeeyey waa inaan ka faa'iidaysanaa fursadaha qaaliga haddii aanu ka faa'iidaysan weynay oo si qaldan aan u samayno dhibaato inoo keenaya khaasatan acshaabta haddii aad si qaldan u samaysid dhibaato ayuu kuu keenaya marka insha allah ka waran adoo warwahayn oo sanjabiil badan cabay uu jirkaaga dhiig ku furay marka waxa weeyaan aan ka faa'iidaysano waxa faa'iidada ay noole sanjabiilka in la isku badiyo waa mamnuuc weeyaan haddii aad rabtid inaad sanjabiilka isagoo buudara ayaa jira isagoo buudara malqaacada yar haafkeed yar karso sanjabiilku maasha allah markasta udgoon buu ka dhigayaa marka sidaas samee haafka yar malqaacada saar oo ku karso shaah haddaad doon isku karsatid haddii kale maanta aniga waxaan rabaa insha allah 5 gram in aan ridqo oo 2 koob ka sameeyo insha allah marka aanu ka faa'iidaysano fursadaha qaaliga insha allah asxaabay wakaasi casiirkii baan kasoo sameeyey insha allah wakaasi sharaabkii wakaas aan kasoo sameeyey sanjabiilka midda kaleete sanjabiilku haddii aad cabtid waxa weeyaan aad dibirsan tahay wuxuu simayaa amba u hagaajinayaa calooshaada uu hagaajinayaa waxaan dibirada badan ayuu ka ridayaa marka insha allah faa'iido ayuu jirka u leeyahay marka insha allah aniga waxaan soo ridqday kii 5 gram ahaa 2 koob baan kasoo dhigtay waadiga arkay 2 koob baan kasoo dhigay 5 gram kii marka insha allah maxaan sameynaynaa waxaan rabaa malabkii saafiga ahaa insha allah waaniga arkaya malabka ayaan ku darsanayaa insha allah intaas ayaan ku darayaa malabka sanjabiilka wakaasi insha allah waka sanjabiilkii malqaacada in yar oo malqaacada ayuu ahaa insha allah sanjabiilka markasta ood ku darsanaysid sanjabiilka malab saafiya waxa weeyaan oo shinida ah malabka saafiga aan lagu cabo insha allah malabka saafiga ayaa lagu ammaanay in lagu cabo insha allah maaha malabyada kale aadka u fiican maxaa la yidhahdaa dawadaana waa lagu cabi karaa insha allah laakiin malabka saafiga ayaa kitaabka ku qoran in lagu cabayo sanjabiilka inuuna ka badanna 5 gram amba 4 gram amba 3 gram waa inuu yaraadaa haddaad malqaacada ku isticmaalaysid haafka malqaacada waanaad ku isticmaashaa insha allah waka marka insha allah sanjabiilku wax kaste oo waxa weeyaan sida beerku hagaajinayaa waqtiyada qaboobahan aad buu ugu fiican yahay inay dadku waqtiga qaboobaha cabaan waxa weeyaan xanjiraha haddii uu maxaa la dhahaa xanjir ku fadhido oo kale jirkaaga waqtiyada qaboobaha uu ka safeynaya una ka baabiinaya waxay bakteeriyada jirka oo dhan waxa weeyaan ku jirta ayuu caafimaad siinaya waqtiyada waxa weeyaan qaboobaha marka lagu darsado malabka shinida amba malabka saafiga marka insha allah aanu ka faa'iidaysano oo waxa weeyaan kuwii waxa weeyaan ka faa'iidaysta ilaahay naga dhiga dhammaan waxay diinteenuna farayso insha allah aan ka faa'iidaysano dawada insha allah waxa weeyaan naqaskay kaasoo saaraysaa jirkaaga hadduu ku jiro naqas hadduu ku jiro wax kaste ayay caadi ka dhigaysaa caloosha waxa weeyaan way ku adkaynaysaa oo caloosha waxa weeyaan dhibaato hadday kaa haysato oo waxa weeyaan sidoo sheegayba rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xanuun kasta oo bilaamaya calooshu ka bilaabmaa baa layidhi marka sanjabiilku uu hagaajinayaa xanuunada caloosha ku dhaco oo dhan marka insha allah laga faa'iidaysto wax kasta oo kaliin garaynaya bakteeriyada jirka ku jirto oo dhan ayuu safaynayaa insha allah marka aan laga faa'iidaysto asxaabay waka casiirkii aan ka dhigay amba cabitaankii amba sharaabkii aan ka dhigay marka insha allah jirka uu nadiifinayaa oo kaliin garaynayaa baan yidhi waxoo kaloo ku sameynayaa sidii jir cusub oo kaloo ka dhigayaa oo waxa weeyaan marka aad cabtid koobka casiirka amba koobka cabitaanka markaad cabtid jirkaaga wuxuu noqonayaa jir cusub ayuu noqonayaa nadiif buu ka dhigayaa jirkaagii marka insha allah waa fursad aad u qaaliya oo markasta ood sanjabiilka amba jinjarka aad cabtid ogow jirkaaga cusub ayuu ka dhigayaa u nadiifinayaa marka insha allah marar ha la iska samaysto wiigii mar ha la iska samaysto wiigii 2 jeer ha la iska samaysto waxa weeyaan
jirkaaga ayuu ku sameynayaa refreshment ayuu ku sameynayaa marka uu cusboonaysiinayaa jirkaaga marka insha allah waa fursad qaaliya marka hala cabo casiir ahaan amba shaah ahaanba labada waa loo cabi karaa laakiin markaste waxaan idigu boorinayaa amba idigu waaninayaa malabka saafiga in lagu yaro darsado insha allah mana ka dareemaysid sanjabiilkii ma dareemaysid 2 koob baan ka dhigay 5 gram marka maba ka dareemaysid dhandhankuma laha sanjabiil laakiin waa dawo oo waxa weeyaan ha isku badinin waxaan ka hadlayno inaanad isku badin muhiimadeenu ugu weyn waxa weeyaan inaanad sanjabiilka isku badin marka insha allah ha laga faa'iideysto fursadaha qaaliga aad baa idin salaamaya ha iga iloobina subscribe ka iga iloobina ha ila garan marina wax faa'iido la ayaa idin soo diyaarinaya insha allah inta ka badan baa idin soo wada like commentka quruxda badan la dhiirigelin buu noo yahay insha allah ha laygu soo isagana lagu soo qoro insha allah aad baan ugu farxaa dhiirigelinta aad sameynaysiin insha allah waana idin salaamayaa dhammaantiin intaa iyo in faa'iido ka badanna insha allah waa idiin soo wada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cajaladeeda kale insha allah kula wanaagsan insha allah isku noqod dambe oo xiiso leh insha allah aad baa idiin salaamayaa